koobkan oo lagu maamuusayay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa lagu qabtay degmada Taleex ee caasimadda gobolka Xaysimo iyadoona tartankan ay ka qayb galeen naadiyada heerka koowaad ee ka dhisan degmada Taleex waxaana markii uu soo gabagaboobay kooxihii kaalmaha hore ka galay abaalmarino isugu jira koobab iyo bilado ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed Xiir isagoona halkaasi kala dardaarmay dhalinyaradii ka qayb qaadanaysay koobkani ciyaaruhu waa isdhexgalka iyo isbarashada dhalinyarada waxay ka dhacaan meel nabadgelyo ah dhalinyarada waxay u tahay mustaqbal wanaagsan wax iskaga daayaan mukhaadaraadka sida qaadka iyo waxa la midka waxay ka xanibtaa tahriibta waxay ku mashquulaan inay ka soo baxaan ciyaaraha ka socda dalkooda waxaa u muuqda amal iyo rajo wanaagsan oo caalamka ay kaga qayb galaan koobkanna waxa la yiraahdaa magaciisa waxa la yiraahdaa Samawade waa koobka ugu horeeyay ee muddadan lagu bixiyo degmada Taleex waxaana ka dhaqan galiyay oo maal galiyay xisbiga kulmiye waxaan aad u bogaadinayaa gudoomiyaha xisbiga gobolka xubnaha kale ee xisbiga dhalinyarada gobolka haweenka iyo mujtamaca gobolka oo runtii si wacan oo qurux badan u soo dhigay muddadii ciyaartan ay socotay kuna soo gabagabeeyay guushan galabta halka ka dhacday ee uu hormuudka ka yahay koobkii inay ku hantiyeen kooxda olol iminkana waxaan guddoonsiinayaa koobkii kabtanka kooxda la yiraahdo magaciisa Jaamac Cabdilaahi Nuur Jaamac gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed Xiir ayaa casho sharaf u sameeyay kooxdii koobkaasi qaaday waxaana dhalinyarada sportska gobolka Xaysimo ay halkaasi baaq uga direen gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan koobkan waa koobkii ugu horeeyay ee gobolka laga qabto taariikh ahaan ama intii aan hadda gobolka joognay wali dama ay dhicin wixii maamul la jiray deegaankan wax koob oo laga qabtay haba yaraatee ma ay jirin hal waxa koobkii ugu horeeyay si wanaagsan oo qurux badan oo nabad iyo firfircoon ku jirtana ugu soo gabagabay gobolka Xaysimo gaar ahaan degmada Taleex in la kaabo oo loo dhiso garoonka kubadda cagta iyo qalabka sportiga olol oo koob ku guuleystay koobkaas oo maal galiyay xisbiga kulmiye magaalada uu keenay walaalaha barnaamijkiisa iyo tawirkii uu sameeyay koobkaas maadaama hawl kale baxay hawl sportiga ay tahay koobkaas waxa koobkii ugu horeeyay Taleex ما يغلطوا أي كبد السؤال لا بديك سؤال سمير سعيد بلا بلشة تي في تكمل تلاحق قبل كحيسمو